dilkii arxandarrada ahaa ee loo geystay cilmi baarihii u dhashay Shiinaha ee ku dhawaaday inuu ogaado halka uu ka yimid coronavirus mise isleedahay Mareykanku cudurkan waxa uu ahaa mid uu doonayay inuu ku dagaalamo balse si aan ku talagal ahayn uga fakaday. Daawade maxaad kala socotaa in ay macquul tahay in Mareykanku uu sameeyay coronavirus ama shaybaarro wadankaas ah muddo lagu hayay? ku soo dhawaada saaxiibayaal xaqiiqooyin ku saabsan dilka Peng Liu oo ogaan rabay halka laga keenay coronavirus ama halka uu ka soo faracmay bilowgiisii hore. maxay tahay sababta keentay dilkiisa isagoo oo wax yar u jira inuu ogaado halka cudurkaas bilowgiisii uu ka soo faracmay? haddii aad ku cusub tahay daawade barteena YouTube ee Daacad Channel, subscribe saar oo fura gambaleelka. waxaan ku soo gudbin doonaa xaqaa'iq aad u baahan tahay ogaanshiyahooda iyo xaqiiqooyin dhab ah oo la xiriira dunida. waxaana soo gudbin doonaa xilliyada qaar waxyaabo ku jira daaha gadaashiisa oo aad doonaysid inaad ogaato. dad badan waxay isweydiinayaan sababtii dilka arxandarrada ah loogu geystay cilmi baare u dhashay wadanka Shiinaha, sidoo kalena ahaa qof baarayay cudurka coronavirus iyada oo lagu toogtay wadanka Mareykanka. su'aalo badan ayaa taasi ka dhashay iyada oo sidoo kale dad badan ay geliyeen shaki iyada oo fikrado ku saabsan shirqoolkiisu ay gabi ahaanba adduunku ay la qabsatay. caalamku wuxuu ilaa hadda ka farajacayaa sababta loo dilay cilmi baarahan u dhashay wadanka Shiinaha oo wax yar u jiray inuu ogaado cudurka coronavirus halka uu ka yimid iyo sidoo kale wadanka uu waqti dheer shaybaaradiisa ku jiray. Peng Liu waa 37 sano jir u dhashay wadanka Shiinaha isla markaana ah professor wax ka dhiga jaamacadda lagu magacaabo Pittsburgh ee ku taala wadanka Mareykanka qaybteeda caafimaadka. waxaana sidoo kale isaga oo meyd ah gurigiisa laga helay Sabtidii. tani ayaa waxa ay tahay mid muran iyo shaki gelinaysa dunida oo dhan kadib markii isagu uu aad ugu dhawaa ogaanshiyaha xaqiiqada ku saabsan coronavirus balse la dilay. qofkii dilayna uu isagana isdilay. tani waxay muujinaysaa inay jirto shabakad dheer oo isku xiran oo iyadu la dagaalamaysa in aan la ogaan cudurka coronavirus, taas oo sidoo kale ay dad badan ku fasireen inay iyaga ka dambeeyaan dadka dilay professorkii jaamacadda wadanka Mareykanka ku taala wax ka barayay ama wax ka dhigayay. maxay tahay sababta loo dilay ama uu u dhintay Liu? waxaa la helay isaga oo meyd ah, waxayna xabadda uga dhacday madaxa, qoorta iyo sidoo kale caloosha, waxaana uu dhex yilay gurigiisa oo ku yaala galbeedka Pittsburgh sida ay booliisku sheegeen. qofka dilka geystay waxaa la sheegay inuu ahaa 46 sano jir injineer ah oo dhanka software-ka injineerka ahaa isaga oo lagu magacaabo Hong Go. maamulka waxay sheegeen in dilkaas ninka marka uu geystay kadib isaguna uu isku dilay gurigiisa. Louis iyo sidoo kale Gu waxay isku garanayeen sida dad saaxiibo ah oo kale, waxaana ay ahaayeen dad waqti dheer iyagu is wada garanayay. baarayaasha dhanka dambiga waxay sheegeen in dilka uu ahaa mid dhex maray laba qof oo saaxiibo ah. waxay xaqiijiyeen caddayn aan loo hayn arrintan. sidoo kale booliisku weli waxa ay baaritaano ku hayaan sababta loo dilay ninkan. kumuu ahaa Liu? war qoraal ah oo ay soo saareen saaxiibadii dhanka shaqo wadaag ay ahaayeen waxay ku tilmaameen in Liu uu ahaa qof cilmi baare ah oo aad u aqoon badan, kaas oo ku dhawaaday inuu arrimo badan oo wax ku ool ah dabcan uu ka ogaado fayraska coronavirus. hase yeeshee dadaal dheer kadib markii uu doonayay inuu soo bandhigo waa la dilay, waxaana lagu dilay gudaha wadanka Mareykanka. dad badan waxay isweydiinayaan in Mareykanku isagu samaystay shaybaarka uu ugu jiray cudurka coronavirus balse si aan ku talagal ahayn uu ku shaacay dunida oo dhanna uu saameynta ugu geystay. sidoo kale su'aasha kale ee meesha taala ayaa ah muxuu Mareykanka u noqday wadanka ugu badan ee coronavirus uu ka dilaacay dad badanna uu ku dilay? daawade macquul ma tahay in sababtaas ay ka dambeysay? Liu oo Shiinaha ka soo jeeda waxa uu shahaadadiisa koowaad ee jaamacadda iyo sidoo kale tan PhD-gaba ka qaatay jaamacad ku taala wadanka Singapore. kadib waxa isagu u wareegay wadanka Mareykanka oo baaritaano uu ka sameynayay. sidoo kale sida ku xusan taariikhda shaqo waxa uu la shaqeynayay dhaqaatiir biologiga iyo sidoo kale baarayaal kale si uu wax uga ogaado habka difaaca jirka aadanaha. dad badan oo ku shakisan shirqoolka dilkiisa waxay aaminsan yihiin in dilkan uu ka dambeeyay qof Mareykanka ah, kan dilay ama kan soo diray. tani sidoo kale waxay muujinaysaa in Mareykanku wax badan ka og yahay cudurka coronavirus. hay-adaha caafimaadka iyo sirdoonka Mareykankuna ay weli qarinayaan sirta ka fashilantay
sida ku talagalka aan ahayn oo cudurkan uga faafay iyaga oo doonayay inay kula dagaalamaan dunida inteeda kale iyo wadamada quwadda awoodda leh haysta. sida caadiga ah Mareykanku cudurkan waxa uu saameynta ugu yeeshay si la mid ah sida dagaalka koowaad ee adduunyada uu ugu dhinteen dad badan oo Mareykan ah. allahayow ayuu qoray qof Shiinaha u dhashay oo isticmaala barta bulshada wadankaas ee lagu magacaabo Weibo, wuxuuna yiri tani waxay u muuqataa wax la xiriira filimka Mission Impossible. waxaa suurtagal ah inuu ogaaday in fayraskan uu yimid shaybaarka Mareykankana uu leeyahay. waxa uu ogaaday in cudurkan uu yimid iyo sidoo kale in fayraskan uu ka yimid shaybaar Mareykanku uu leeyahay. taas ayaana khasabtay dilkiisa ayuu yiri qof barta Weibo ee Shiinaha laga isticmaalo ku soo qoray hadalkan oo uu kaga qiiroonayay dilka professorka Shiinaha ka soo jeeday ahaana baarihii ku dhawaaday soo ogaanshiyaha xaqiiqada la xiriirta coronavirus. fariimo la mid ah oo badan ayaa lagu sheegay in Liu loo dilay inuu shaaca ka qaadi rabay meesha uu ka soo faracmay fayraska adduunka albaabada u laabay ee corona. dawladda Shiinaha iyo warbaahinta wadankaasiba waxay hore u sheegeen arrimo aan la cadeyn karin oo ku aadan fayraska coronavirus iyaga oo qaarkood sheegay inuu ka yimid wadanka Mareykanka ka hor inta uusan ka soo bilaaban magaalada Wuhan ee wadankaasi oo ay soo gaareen ciidamo Mareykan ah. qaar ka mid ah dadka isticmaala Weibo waxay sheegeen in kiiskan loo ekeysiyay wax ka dhacay ama wax iska dhacay si caadi ahna u dhacay. waa kiis aan caadi ahayn oo horay aan loo arag. waxay u badan tahay in ay jirto sir qarsoon oo mugdi ku jirta ayuu yiri qof ra'yigiisa dhiibtay. dadka qaar waxay sheegayaan in maadaama uu ka soo jeeday Shiinaha ay taasi sababtay halista uu ku wajahay Mareykanka inkastoo aan arrintan cadeyn loo haynin. Global Times oo ah bog la xiriirinayo dawladda Shiinaha waxa lagu qoray warbixino faafinaysa warar kala duwan oo la xiriira geerida Liu. dhanka barta Twitterka dadka qaar waxa ay iyagu ku baahiyeen waxyaabo aan weli la ogeyn oo la xiriira inay suurtagal tahay in dawladda Shiinaha ay dhacdadan lug ku leedahay. fikrado aan la xaqiijin karin oo iska soo horjeeda ayaa geedaamay halka uu asal ahaan ka yimid fayraska coronavirus ama COVID-19. fikradahaas waxay ku saabsan yihiin kuwo la isku adeegsaday baraha bulshada iyo internetka. sidoo kale arrimo aan la xaqiijin karin ayay si weyn u buunbuuninayaan siyaasiyiin iyo warbaahinta Mareykanka iyo Shiinaha ay leeyihiin. haddaba daawade ma is leedahay cudurka coronavirus waxa uu ka yimid wadanka Mareykanka ama Shiinaha? sidoo kale daawade fakar ma kugu dhalisay dilka loo geystay professorkii doonayay inuu ogaado xaqiiqada cudurkan? mise is leedahay Mareykanku cudurkan waxa uu ahaa mid uu doonayay inuu ku dagaalamo balse si aan ku talagal ahayn uga fakaday? waad mahadsan tahay daawade haddii aad ka heshay xogtaan aan idiin soo bandhignay ee la xiriirtay sababtii loo dilay professorkii iyo sidoo kale baarihii cudurka coronavirus. ayaan daawadeel intaas ku soo gabagabeynayaa. dilka Pink Liu waxa uu dhaliyay shaki weyn. waad mahadsantiin daawadayaal, nabadgelyo.